بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. magacayga waa Dr. Maxamed Saciid Maxamuud kana howlgala qaybta wadnaha isbitaalka takhasusiga ee tacliimiga ah Dalmar. maanta waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeeni wacyigelinta bulshada. maanta waxaynu ka hadlaynaa xawayaan xanuunka loo yaqaano dhiigkarka ama hypertensionka af qalad lagu dhaho. dhiigkarka waxa waaye si guud jirka wuxuu leeyahay pressure uu leeyahay ama cadaadis uu dhiigga ku socdo. waxaa jirta marka qulqulka dhiigga cadaadisku ku hay darbiyada halbowlayaasha kaas waxaa la lahaa pressure. kaas markuu xadkii loogu talagalay xaddi normal ah jiro, xadkaas markuu ka bato waxaa la yiraahdaa hypertension ama dhiigkar. taasaa la yiraahdaa si guud xanuunkan waxaa loo kala qaadaa laba qaybood marka laga hadlayo causative-ka ama waxyaabaha sababaya. almost midka koowaad primary ama essential hypertension lahaa wax cause gareeya ama sababo lama yaqaano. midka kaleetana waa secondary hypertension, cilado kaloo jiro waxay cause gareynayaan dhiigkar inuu imaado. marka laga hadlayo caalamiyan waxaa la yiraahdaa waxa waaye qiyaastii ku dhawaad 1.3 bilyan oo qof ayaa waxay la nool yihiin xanuunkan dhiigkarka. 1.3 bilyan ku dhawaad waxa waa qayb ka mid ah ma oga in xanuunka ay qabaan ama ay la nool yihiin. sidoo kaleeto qaybta la diagnose gareeyay ama la ogaaday inay dhiigkarka qabaan qayb ka mid ah ma haystaan sidii ugu saxsaneyd ee loola tacaali lahaa dhiigkarkaas inay ula tacaalaan ayadana ma haystaan. xanuunkan si guud caalamka waxaa kaloo looga yaqaanaa xawayaan waa silent killer ama WHO ay ula baxday oo ah dilaaga qarsoon. calaamad toos ah oo maanta la dhahi karo calaamadaas waxay astaan u tahay xawayaan dhiigkarka ma jirto, laakiin si guud qofku wuxuu u muujinaa xawayaan madax xanuun subaxda horeeto ee early morning-ka, halkaas meeshaas qadaadkaas dambeeto oo pulsating headache dhaha ama si guud madaxa qofka xanuunayo. sababta silent killer loo dhahana waxa waaye qofka hal mar uu kusoo dhufanayo ama qofkii oo dhinac dhaca la arkaa ama waxa waa wadnihiisa oo cilad ay ku imaaday ama kilidii oo cilad ku imaaday ama indhihii cilad ku imaaday. si marka taas looga hortago waxaa jirto wacyigelin la isku wada waafaqay taasoo ah qofka inuu iska baaro pressure ama iska cabiro. cabirka marka laga hadlayo sida ugu saxnimada badan waxa weeyaan qofka marka laga cabirayo waa inuusan qof markaas exercise ama orod ku imaada uusan ahayn. at least waqti yar inuu qaato qofka oo nasto, markuu nasto kadib laga cabiro. cabirka marka la cabirayo waxaa la rabaa gacantiisa inay meel saarnaato xididka laga cabirayo iyo wadnihiisana waxa waa inay isku xisayn, labada gacanna in laga kala cabiro. hal marna aanan lagu qaadanin cabirka, wuxuu u baahan yahay waxa waaye marar badan in la cabiro ama xilligaas ama maalintii waqtiyo ka mid ah in la cabiro. markii labo ama ka badan ay sheegto 140 oo dhiigga koreeta ah la-eg ama ka badan iyo 90 oo dhiigga hoose ah la-eg ama ka badan, markaas waxaa la dhihi karaa qofka waxa waaye dhiigkaraa qabta. markaasna wuxuu u baahnaan doonaa la tacaalis iyo ka hortag iyo wacyigelin in la siiyo u baahnaan doonaa. marka ugu horeysa waxa weeyaan cabirka in la iska saxo. sidoo kale waxaa jira bahalada lagu cabiro, waxaa jira size ay kala leeyihiin. size carruurta loogu talagalaa jiro, size dadka waaweyn loogu talagalaa jiro, size dadka cayilan loogu talagalaa jiro. hadba marka qofka size-kiisa hadii lagu cabiro jawaab qaldan oo soo bixinaya. taasna qofka waxa waa inuu la socdo muhiim ah. adoo iska ordaya inaad farmashi iskaga tagtid adoo istaagsan hore lagaaga cabiro lagu dhaho dhiiggaaga uu kacsan yahay micno badan ku sameynayso. waxaa haboon at least inaad isdejisid marka laga cabirayo, then waxa waaye waa fadhi saxan aad fadhiisatid, nasatid, kadib adoo nastay oo waxa wax buuq ku jirin markaas lagaa cabiro, cabirkaasna lagu celiyo tirada markaas badnaat in la qaato. markaasaa lagu xaqiijin karaa in dhiigkarkii uu jiro. dhiigkarkan sababta looga baqaayo waxa waaye wuxuu dhibaato caafimaad gaarsiiyaa waxa waa wadnaha, wuxuu dhibaato caafimaad gaarsiiyaa waa kilida, wuxuu dhibaato caafimaad gaarsiiyaa waa indhaha. sidoo kaleetana halis weyn wuxuu gaarsiiyaa waxa weeyaan dareensidayaasha. qofkii hal mar in maskaxdii ama dhiigga ku furma ama dhiigga ka xirma dhinaca dhan qofkii
inuu dhaco oo subaxdii uu la soo kaco waxa dhinacan qofka soo dhacsan oo miir daboolan cabsidaas waaye maxay ahaydeen waxyaabaha loo baahan yahay in la iskaga wacyigeliyo oo qofka markasta uu iska cabiro waxaa jira xaalado u nugleynaya qofkan dhiigkarka inuu ku imaado sidoo kaleetana hadduu dhiigkarka qabo in cillado uu yeesho oo wadnihiisii iyo waxay ahaydeen keliyihiisii indhihiisii uu saameeyo cilladahaas waxaa ka mid waxa waaye cillado wax laga bedeli karo iyo cillada wax laga bedeli karin genderkaaga ama nooca aad tahay nin iyo naag waxa wax ka bedeli kartid ma laha da'da waxa wax ka bedeli kartid ma laha iyo waxa genetic barnaamijkaas ay dhahaan ayadana waxa wax ka bedeli kartid ma laha iyo kuwa aad wax ka bedeli kartid oo ah cayilka qofka wuxuu halis u geliyaa dhibaato caafimadeed in qofka ku imaado cayilka waxaa loo baahan yahay qofka in uu qiimeeyo cayilkiisa heerka uu leeyahay waxaa jirto qaacido la isticmaalo oo lagu qiimeynayo heerka cayilka qofka lagu qiimeynayo ama body mass index la qaacidadaas waxay sheegaysaa waxa waaye oo loo baahan yahay qofka culeyskiisa oo loo qiimeeyo qofka dhirirkiisa oo laba jibaaran tiradaas soo baxdo wuxuu u fiirinaa ranjiga ah ama 18 ilaa 25 18 ilaa 25 haddii uu intaas ku guda jiro qofkaas normal weightkii loogu talagalay uu ku jiraa haddii 25 iyo ka badan ay noqoto qofkaas waxa waaye overweight iyo obesity uu ku jira xeyndaabkii cayilka iyo maxay uu ku jira taas marka qofku wuxuu u baahnaana waxa waaye cayilkaas inuu iska dhimo qaabab badan la iskaga dhimaa qofka inuu ugu muhiimsan ama ugu caafimaadka badan waxa qofka jimicsi inuu sameysto oo jadwal maalinle ah oo jimicsi uu ku sameynayo qofka inuu yeesho kaasoo ka saacidayo culeyskaas inuu waxa ka nimo sidoo kaleeto dietkiisa ama cuntadiisa oo kaleeto inuu yara controlo waxaa jiro processyo la galaa jiro dadka dietitianka ama nutritionska inuu la tashto oo qaabka culeyskaasi waxa iskaga dhimaayo inuu haysto sidoo kaleeto halista waxa qofka uga sii badinaya waxa waaye haddii uu la nool yahay maxay ahaydeen sokor aydan dhibaatada way uga sii daraysaa sidoo kaleeto qofka hadduusan lahayn qaab nololeed oo jimicsi ah qofku uu yahay xafiis iyo guriga iyo gaari intaas hadduu u dhexeeyo ayadana halista caafimadeed way uga sii daraysaa qofka inuu jadwal jimicsi ah inuu yeesho ayadana waa muhiim oo dhaqdhaqaaq la'aanta ah alxamdulillah kulli aniga waa dad muslimiin iska nahay alcoholka ayadana sidoo kale way ka qayb qaadataa la halis dhibaatada caafimadeed kulli ma fileeno dad Soomaaliyeed oo muslimiin nahay laakiin waa qadar way dhici kartaa dadkii maxay isticmaalkooda uu baashaas badan yahay inay iska joojiyaan ilaahayna uga baqaan sidoo kale sigaarka asagana sidoo kale waa saameynta asina qayb uu ka yeesha asagana wax diinteena aanan yara ku banaaneen qofkiina wax u wanaagsan waa inuu iska daayo caafimaadkiisa si ay u hagaagto intaas ugu muhiimsan waxyaabaha uu wax ka bedeli karo qofka inuu sameeyo qayb weynna oo ay ka qayb qaataan daaweynta marka loo imaado xanuunka dhiigkarka waxaa loo baahan yahay waxa waaye hadba waxay ku xiran tahay heerka qofka dhiigiisa uu yahay daaweynta waxa saameyn qayb ku yeelanay laba waxaa kaloo saameyn ku yeelanayo dhiigkarkaas inuu keenay dhibaato kale oo caafimadeed tusaale ahaan wadnahoo kaleeto inuu dhibaato gaarsiiyo sokor inay ula socoto allah mustacaan in kilidii ciladii ka gaartay in indhihii ciladii ka gaartay ayakana waxa xaalado keensanayo qofka inuu daawo afka ka qaadanayo ama cirbada hadba levelka uu yahay ee ku xirnaanaysa iyo qayb non pharmacological oo ah waxyaabihii hadda ka soo sheekeynayna oo qaab nololeedka qofka ku saleysnaa inuu wax ka bedelo haddii ahaan lahayd cayilka inuu iska yareeyo oo weight loss uu sameeyo haddii ahaan lahayd jadwal maalinle ah oo jimicsi ah inuu yeesho haddii ahaan lahayd waa cuntada cusbada ku badan tahay inuu iska yareeyo haddii ahaan lahayd sidoo kaleeto oo qayb weyn ka qayb qaadanayso inuu waa isbaaris guud uu sameeyo haddii fursad iyo dhaqaalaha u saamaxaan 6 biloodba mar ama sanadkiiba mar dadka xanuunka dhiigkarka la nool
haddana waxa waaye maxay ahayd daawada markay isticmaalaan pressurekoodii normalka aysan noqonaynin amaba la socdaan xanuuno la xiriira wadnaha ama keliyaha ama indhaha waxaa habboon waxa waa inay u tagaan dhakhtar caafimaade kaasoo ka saacidaya la talin iyo daaweyn inuu sameeyo qofkana dhiigkarka qaba waxa u muhiimsan waxa waaye inuu barto xanuunka dhiigkarka waxa uu yahay waxa ciladihiisa saameyntiisa dhibaatada sii kordhin kara sida lagula tacaali karo waayo xanuunkan dhiigkarka ah 60% ama 70% waxay ku xiran tahay qofka xanuunka la nool inta kale soo harta waxa weeyaan dhakhtarka waxa uu ku leeyahay waa la talin iyo inuu daaweyntii iyo xaaladiisii inuu la socdo laakiin waa wax ku xiran qofka shakhsiga ah ee la nool mana la filayo daawo in lagu siiyo lagu dhaho dhiigkar oo dhan waa ka caafimaad laakiin waa wax aad la noolaanaysid inta noloshaada ka dhiman maadaama waxaan ay tahay wax aad la noolaanaysid waxaa kuu muhiimsan kow inaad leedahay dhakhtar inaad ku xirnaatid labo inaad aqoon u yeelatid oo xanuunkan sida uu yahay dhibaatada caafimaad uu gaarsiinayo intaas bayna waxaysid intaasaa ugu muhiimsan dhiigkarka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Dolmar Specialty and Teaching Hospital. Higsigeenu waa caafimaadkaaga.